allaha u naxariistee waxa uu ahaa siyaasi rugacda ah oo qayb weyn ka soo qaatay siyaasadda guud ahaan Soomaaliya. Axmed Siciid Ciga ayaa inoo haya taariikh nololeedkiisa. allaha u naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal yaraantiisii waxa uu ku barbaaray magaalooyinka Burco, Berbera iyo Sheekh oo uu ku dhammaystay waxbarashadiisii malcaamadal qur'aanka ilaa iyo dugsiga Sheekh ee caanka ah. waxbarasho sare ayuu waxa uu u tagay oo la xidhiidha dhinaca ganacsiga magaalada London ee waddanka Ingiriiska. waxaanu dalka dib ugu soo laabtay horaantii sanadihii kontameeyadii oo xilligaasi ay aloosnay dabayshii xornimadoonka ee xisbigii SNL. sanadkii 1956 allah u naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaa loo doortay in uu noqdo xogayihii guud ee xisbigii SNL ee u halgamayay xornimadii Somaliland. bishii February sanadkii 1960 allah u naxariistee maxamed ibraahim cigaal waxa uu gacantiisa ku soo saxeexay in Somaliland ay xornimadeeda ka qaadato dawladda Ingiriiska taariikhdu marka ay tahay 26 Juun ee sanadka 60. markaasi waxa cigaal ku heliyay heshiiskaasi rag ay ka mid ahaayeen Cali Garaad Jaamac, Xaaji Ibraahim Nuur, Axmed Kayse Ducaale iyo Maxamuud Cabdi Caraale. maxamed xaaji ibraahim cigaal allah u naxariistee waxa uu noqday hogaamiyihii u horreeyay ee Somaliland kadib markii ay xornimadeeda gaadhay 26 Juun sanadkii 1960. 1 Julaay 1960 markii gobollada koonfureed ee Soomaaliya ay iyana xornimadoodii ka qaateen dawladdii Talyaaniga ee ay dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya. maxamed xaaji ibraahim cigaal oo hogaaminayay wafdigii ka socday Somaliland waxa uu noqday wasiirkii gaashaandhigga ugu horreeyay ee Soomaaliya. allah u naxariistee cigaal waxa uu kale oo noqday wasiirkii tacliinta ee Soomaaliya sanadkii 1963 ilaa 1964. hase yeeshee waa uu iska casilay golihii wasiirada ee xilligaasi markiiba isagoo hogaamiye ka noqday xisbi mucaarid ah oo la odhan jiray SNC. markii dambena wuxuu ku biiray cigaal xisbigii SYL. 10 Julaay 1967 waxa uu cigaal uu noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markii Cabdirashiid Cali Sharma arkay loo doortay xilligaasi madaxweynihii Soomaaliya. maxamed xaaji ibraahim cigaal mar kale ayaa waxaa loo doortay jagadaasi ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya doorashooyinkii 1969. 21 Oktoobar 1969 markii inqilaabkii military ee uu hogaaminayay Generaal Maxamed Siyaad Barre uu ka dhacay Soomaaliya ee taladii ciidamadu ay la wareegeen maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay ee dawlad Soomaaliyeed ee la doorto ee la inqilaabo dawladdiisa. waqtigaasi waa la xidhay. waxa uu maxamed xaaji ibraahim cigaal xabsiga uu ku jiray ilaa 1981 bishii February marka laga reebo muddo sanad ka yarayd oo ahayd 1975 ilaa 76 oo mar loo magacaabay danjiraha Soomaaliya u fadhiya New Delhi ee dalka Hindiya. kadibna isla markiiba xabsiga ayaa lagu celiyay inta loo yeedhay. 1985 waxaa jirtay mar loo magacaabay maxamed xaaji ibraahim cigaal gudoomiyaha rugta ganacsiga, laakiin kumuu raagin jagadaasi ee uu iska casilay markiiba. burburkii dawladdii Soomaaliya kadib cigaal waxa uu ka qayb galay sanadkii 1991 shirkii dib u heshiisiinta Soomaaliya ee Djibouti. 1993 bishii May 5 cigaal waxa loogu doortay magaalada Boorama madaxweynaha Somaliland, iyadoo jagadaasi haddana dib loogu doortay sanadkii 1997 shirweynihii beelaha ee Somaliland. maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu toddobaadkii hore daaweyn u tagay dalka koonfurta Afrika iyada oo ay weheliso marwadiisa Kaltuum Xaaji Daahir iyo xubno ka tirsanaa golaha wasiirada ee Somaliland. maxamed xaaji ibraahim cigaal oo aabihii xaaji ibraahim cigaal uu dhalay keligii waxa uu allah u naxariistay uu guursaday intii uu noolaa 5 dumar ahaa, wuxuuna uu dhalay 5 carruur ah oo kala ahaa 3 wiil iyo 2 gabdhood oo intuba ay u dhashay Marwa Caasha Siciid Caabi.